السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مبارك. ملك سيد جوجتين وحنيلة وقت قاعدين وعناضو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أنكو صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن بدين سلقيس فضل آدم بدل أيولي هاي waxaa jirta laba mahmahood oo Soomaalidu isticmaalaan oo aad u wanaagsan oo fiican in lagu dhaqmo. Waxa Soomaalidu yiraahdaan hubsiima hal baa la siistaa iyo barashoortidayneen. hubsiima hal baa la siistaa waxaa jirta marar badan inaan decision aan nolosha aan ka gaarno ama aan ku salayno hubsiima la'aan decision badan oo nolosha aan qaadanayno. For example cilaaqaadka dadka u dhaxeeya hadii asxaabta hadii ehel tahay marar badan waxaa jirta inaan qaraaraad aan qaadano aan ku qaadano inaguna waxba hubsanin ayna fiican tahayna inay dadku xoojiyaan hubsiima hal baa la siistaa. tusaale ahaan dad asxaaba oo waxaa jira aad isku wanaagsan oo yani xiriir wanaagsan oo asxaabtinimo oo walaalnimo oo xoog ah ka dhaxeeyo. waxaa dhici karta mararka qaarkood inay labada qof oo qof mashquulo oo na haleeli waayo inuu la xiriiro qofkii duruufo soo wajahday awgeed. qofka kale waxaa laga sugayaa inuu ogaado qofkan wixii ku dhacay oo xiriirkiisu u gaabtay ama oo xiriirkiisu u jarmay inuu ogaado qofkan ma bukaa, qofkan ma caafimaad qaba, qofkan ma problem baa la soo dirsay, qofkan ma btiilahay baaba u timid because xataa naftu meel ma jirto. laakiin ka waran hadduu qofkii qofka kala raadin lahaa oo isdhaho oo qofkan xiriirkaaga ma rabo waa inaan aniguna ka gaabsado xiriirka u jaro yacni hubsiima la'aan ayuu qofkaasi ku bees gareeyay decisionka ama qaraarka. laakiin waxaa ku habboonayd inuu qofkan raadiyo xaaladiisana soo ogaado kadibna oo qaraarkiisa markaa qaato. waana xilliga qofku bini aadanka dadku markay asxaab yihiin xilliyada qofka wanaagsan iyo qofka kale aad ku kala garanaysid mar walba. waa muhiim inaan mar walba mahmahadaasi ku dhaqano. hubsiima hal baa la siistaa yacni hal baa la siistaa yani waa wax fiican wey, waa valuable, waa ku badbaadinaysaa marar badan. laakiin nagu marar badan dadkeena indho la'aan baan wax kasta maaragtay iskaga assume garaynaa. markaa taasina problem bay dadka ku keentaa iyo cilaaqaadka dadka u dhaxeeya. tan kale barasho horteed haynicina dadkeenu badanaa waxay isticmaalaan qiila waqaalka. waxay qof baa qof kala nacaya just qiila waqaal darteed ama wuxuu maqlay wax negative oo laga sheegay oo qof kale ka sheegayo. qofkan muu baran, qofkan xiriirka muu dhaxayn noocay doontaa noqoto, qofkan shakhsiyadiisa maba garan karaba. qof ay laga yaabo inay colaadi ka dhaxayso oo si xun uga hadlayay darteed ayuu ku bees gareynaya decisionka uu ka qaadanaya in caybshaha ah inuu qofka shayda aan ka naco waa qalad. barasho horteed nicib bay Soomaalidu tiraahdaa. dad badan oo negative badan laga sheegaba ogaanaysa markaad really barato inay dadka adduunka ugu wanaagsan yihiin.